Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa maanta khudbadiisa Jimcaha kaga hadlay oo ku soo qaatay dhibaatada ay leedahay baraha bulshada ama waxa loo yaqaan social media oo ay si weyn u isticmaalaan badiba dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay inay sida ugu wanaagsan ay uga faa'iideystaan haddii kale buu sheekhu yiri ay dhaxli karaan waxyaabo iyagana diintooda wax u dhimeeyay sidoo kalena ay dambi weyn ka soo gaadhayo Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo si weyn ugu dheeraaday baraha bulshada iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelatay qoysaska wada nool oo aan iska warahayn iyagoo guryahooda ku wada nool iyagoo baraha bulshada siyaabo kala duwan oo aan wanaagsanayn ay u isticmaalaan waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Dheer oo amurahaasi kaga hadlay khudbada Jimcaha maanta waynu ognahay wasaaisha iyo media ama baraha ay bulshadu ku kala warqaadataa xawaaraha uu jarayo ee tiknoolajiyadeed xawaaraha uu jarayo ee aqooneed xawaaraha uu jarayo ee bulsho ku xidhan waynu dareemi karnaa waanaynu garan karnaa ka isticmaalaana waa og yahay ka aan isticmaalinna waa uu maqlay oo waa uu bowsaday ama wuxuu dareemi kara way dhalinyaradeenni rag iyo dumar dadka waaweyn waa lagaga badan yahay baabkane baababa ay ku horeeyaan oo iyaga laftigoodu inaynu kala hadalna ay tahay waa jiraan laakiin waan dambaysiisanayaaye dhalinyaradii rag iyo dumar arrintan miidiyaha iyo baraha bulshadu ku kulanto iyo isticmaalka warisgaarsiinta dhalinyaradu aad iyo aad ayay ugu foogan yihiin heer waxay naga gaadhay dadka guri wada jooga aanay wada sheekaysan karin oo aan la garanayn gurigan miyaa loo soo hoyday mise waa laga maqan yahay tobanka ruux ee jooga midba meel uu kula hoos jiro waxa weeyaa Facebook ama WhatsApp ama Twitter ama magaranaysa Instagram noocyada magacyada faraha badan leh ee loo bixiyo ka doonta soo qabo ama asxaab buu kula sheekaysanaya ama gabar buu kula sheekaysanaya ama inaan bay wiil bay kula sheekaysanaysaa amaba heerka uu inaga marayo reerka laftoodii ayaaba ku wada sheekaysanayo reerihii guruubay samaysteen halkan maanta khudbadayda waxaan baaq uga dirayaa dhalinyarada noocyadooda kala duwan baraha bulshada lagu kulmayo waxaynu ognahay haddaad dhigto ama aad ku qorto maqaal ama aad soo dhigto kilib iyo wax yar oo go'an ama video ama hadal go'an oo sharxan baarsan in allaala intii sharka ku fitnowda dambigooda qiyaamaha waad leedahay iyagana waxba laga deyn maayo adigana intaa in leeg baa lagu siinaya ilaahay baa quraanka inoogu sheegay Ahmed Khalid Farax telefishinka Real Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida